إلهي سبحانه وتعالى وحو بن آدم كوت الماما ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. برزخ وحو كبل ما بي علماء إلى هدان وقيرده markay soo degto ka bilaabma ilaa iyo inta bacsigu dhacaya ama soo saaritaanku waa waqtiga u dhaxeeya baynu uga dan leenahay qabriga aynu sheegayno. qabriga waxa la tilmaamaa xadiis imaam Tirmidhi uu soo saaray Sheekh Al-Albani xasan ku tilmaamayo Uthman ibn Affan baa waxa la yidhi marka qabri uu soo agtaago ayuu ilmeyn jiray ilaa iyo oohinta ka soo dareerta ay gadhkiisa qoydo. markaasaa waxaa lagu yidhi Uthmaanow jannada iyo naartaba marka la sheego sidaa uma oydida maxaad marka xabaasha la sheego ama aad aragto sida tan ugu oydaa. dabeetana wuxuu yidhi waxaan maqlay nebigoo leh calayhi salaatu wassalaam alqabru awalu manaazili alaakhira fain najaa minhu famaa bacdahu aysar minhu wain lam yanj minhu famaa bacdahu ashaddu minhu. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه. وحن مغليبو لي نبي عليه الصلاة والسلام وله حباشو وقرقي وقهر ريي آخر حقي إذا مرك الله كعيه يعني دار الدنيا عمل كلا شقيساني ولا قتقي حباشو بيقولوا وقرقي وقهر ريي آخره ninkii xabaasha ku badbaadaana wixii ka dambeeyaa way ka sii fudud yihiin. xabaasha se qofkii badbaadi waayaa famaa bacdahu ashaddu minhu wixii kaaga sii dambeeyana way kaaga sii darayiin. waxaan kaloo maqlay buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam oo leh wax ka fool xun oo ka dhib badan xabaal maan arag nebigoo leh calayhi salaatu wasalaam. xabaasha wuxuu nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka mu'minka ah ee ilaahay uu xabaasha ugu nimceeyaana ee la tusiyo goobtuu jannada ka gelayay iyo naartii uu ka badbaadayna wuxuu idhahaa rabbi cajil qiyaama asaaca ilaahay ow dadeji qiyaamaha ama saacadda dhicisteeda ilaahu soo dadeji si uu reerkiisi iyo ehelkiisi iyo jannadiisii uu helo. qofka kaafirkaa ama xumina wuxuu idhahaa isagoo lagu cadaabayo xabaasha ayuu haddana wuxuu leeyahy rabbi laa tuqim isaaca ilaahay ow saacadda ha kicini yacni aan qiyaamuhu dhicin waayo wuxuu ogyahay waxa ka dambeeya inay kaga sii dhib badan yihin. qabrigu waa meel madow siduu nebi moxamed sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixayn ku yaalla ina haadihi alqubuuru malii'atun dulmatan calaa ahliha. xabaalaha kani mugdi ayaa ka buuxo dadkooday ku madow yihiin. وإن الله عز وجل منورها لهم بالصلاة عليه. إلهنا سبحانه وتعالى وحوق النورنا إياه صلاة أن كنت كذيب النبي لي عليه الصلاة والسلام صلاة داسي أن كنت كذيب إلهي سبحانه وتعالى حباش أو النورنا إياه إلهي أنتو حباش أو النور طهينا غياله حباش وحيكم يتعلوك الله يسكو اتحامه ونبي عليه الصلاة والسلام أحاديث تكسقنا وحي تلمامسة مركا وقفك لديك حباشة ee laga dareero inay laba malag u yimaadaan. laba malag oo aragtidooda ay aragti adag tahay aragti baqa gelinaysa hadalkoodu yahay nahar iyo dagaal oo intay soo fadhiisiyaan axaadiista qaarkoodna ay ku tilmaamayaan inay laba madmadow oo buluuya aswadaani asraqaan buu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. axaadiista qaarkoodna waxay ku tilmaamayaan munkar iyo nakiir in la yidhaahdo. labadaas malag intay soo fadhiisiyaan qofka inay odhan doonaan man rabbuk maa diinuk man nebiyuk waryaa kuu rabbiya diintaadu se maxay ahayd nebigaase waa kuma. qofkii alla sugaya subxaanahu wa tacaala markaas allahayna sugee wuxuu odhan doonaa rabbigay waa alle subxaanahu wa tacaala diintayna waa islaam nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam waa nebigii rasuulkaan rumaysnaa. qofkii munaafiq iyo gaalina inuu waxba garan waayi doono oo ay markaasi habaari doonaan. waana sababtay ku fasiraan culammadu aayadda qur'aana ilaahay leeyahy yuthabbitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati addunya. ilaahay subxaana wa tacaala qofka mu'minka ah wuxuu ku sugayaa
alqowl الthaabit fi اlxayaaةi اdunya wa fi اlaakhira aakhiriya adduunba yani waxay culammadu ku tafsiiraan inay tahay marka xabaasha la dhigo ayaa ilaahay subxaanaه wa tacaala baqa gelin kari maayaan malaa'igta tan ad adag ee wax dagaalayaaye waxa ay ku hadlayaan ilaahay baa ku sugaya weedhii saxa ahayd oo inuu garto inuu rabbina alle u yahay islaamkuna diintiisii tahay nebi moxamedna rasuulku rumaysnay inuu yahay calayhi الsalaatu wasalaam markaasaa samada laga dhawaaqaya la odhanaya an sadaqa cabdi run buu sheegay addoonkaygii kii kale ee gaalkaana haah laa adri ilaa ay ka yidhaahdaan malaa'igtu laa darayta walaa talowt waxba garan maayo buu odhan doonaa waa yacni waxba wuu garan waayi doonaa ilaahay subxaanaه wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu cadaabka inaga dhowro oo qabriga kuwa sugma alle subxaanaه wa tacaala inuu inaga yeelo